asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay dhammaantiin meel waliba joogtaan kusoo dhowaada muuqaalka maanta oo aan idiin soo gudbinaya anigoo cabdulle macalin maalto. inta badan militariga adduunku waxay gaareen horumar lagu sameynayay diyaaradaha dagaalka ee khumaatiga u kaco tan iyo sanadihii 1940meeyadii, inkastoo sanadihii 1960meeyadii la bilaabay in horumar weyn laga gaaro sameynta diyaaradaha noocan ah. kadib dabayaaqadii xilligii uu dhacay dagaalkii qaboobaa, waxaa adag in la sameeyo diyaaradahan militariga, waana qaali marka ay timaado hagaajintooda. waana sababta ugu wacan in militariga ugu awoodda badan adduunka uu haysto diyaarado yar oo noocan ah, gaar ahaan kuwa dagaalka. diyaaradaha dagaalka ee wax weerara ayaa la arkay markii ugu horreysay xilligii howlgalkii midowda Soofiyeed uu ka fuliyay Afghanistan. sidoo kale diyaaradahan dagaalka waxa ay soo adeegsaday dhinacyadii isku hayay dagaalkii Ciraaq iyo Iiraan. diyaaradahan waa kuwo muhiim ah oo saameyn weyn ku leh dagaalada. waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa 5 diyaaradood ee militariga ugu halista badan uguna awoodda badan adduunka, sida laga soo xigtay jariiradda lagu magacaabo The Military Watch Magazine. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeenna, like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan. sheer leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keenna, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channel-keenna, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelinno. mahadsanid. aynu ku bilowno barnaamijkeenna. diyaaradda koowaad waxaa lagu magacaabaa KA-52 Alligator. waxay ka mid tahay diyaaradaha militariga ugu awoodda badan adduunka ee abid la sameeyey tan iyo dagaalkii qaboobaa. sameynta diyaaradan lagu magacaabo KA-52 waxay bilaabatay sanadkii 2008. ciidamada Ruushka ayaa haysta ku dhowaad 155 ka mid ah diyaaradan, waana diyaarad qaali ah marka la barbardhigo diyaaradaha kale ee haystaan militariga Ruushka. shirkadaha soo saara diyaaradan waxay xakameeyaan iibgeyntooda. dalka Masar ayaa haysta nooc ka mid ah diyaaradan oo lagu magacaabo KA-46. waxay diyaaradan awood u leedahay inay xambaarto hubka loo yaqaano KH-31 oo gaari karo masaafo ka badan 1300 kilomitir. diyaaradda labaad ee barnaamijkeena ku soo qaadanayno waxaa lagu magacaabaa Mi-28 Harvard. diyaaradda Mi-28 waxay ka mid tahay kuwa uu soo saaro waddanka Ruushka ee qaaliga ah. diyaaradan waxay shaqaynaysay tan iyo sanadii 2009. dalalka laga iibiyey waxaa ka mid ah waddanka Algeria iyo Ciraaq. diyaaradan waxay u muuqataa mid ka wanaagsan diyaaradda Apache ee uu leeyahay waddanka Mareykanka, taasoo tay ahaan u dhow diyaaradan Mi-28. Mi-28 nooc ka mid ah diyaaradan ayaa sanadkii 2017 howlgalka fulisay dalka Suuriya, waana diyaarad tayadeeda loo bogay. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa saxiixday heshiis ku saabsan in tirada diyaaradan la gaarsiinayo 98 marka la gaaro 2027. diyaaradda saddexaad ee barnaamijkeena ku soo qaadanayno waxaa lagu magacaabaa AH-64E Apache. kadib markii uu Mareykanka samaystay diyaaradan lagu magacaabo AH-64 sanadkii 1975, waxay soo martay marxalado kala duwan intii aysan howlgelin 11 sano kadib. diyaaradan waxaa markii hore loo sameeyey inay ka hortagto taangiyada dagaalka ee cadowga, waxaana la sheegay in diyaaradan ay qaado hubka awood badan, ayna ka awood badan tahay diyaaradda dagaal ee nooca loo yaqaano AH-1 Cobra. diyaaradda afraad ee barnaamijkeena ku soo qaadanayna waxaa loo yaqaanaa Mi-24P iyo Mi-35 Hind. diyaaradan waxay si rasmi ah u howlgashay sanadkii 1972. Mi-24P Mi-35 Hind waxaa lagu tilmaamaa diyaarad aad looga cabsanayay tan iyo dagaalkii qaboobaa ee adduunka, waxaana la xaqiijiyey in howlgallo badan ay ka qayb qaadan karto. inkastoo la sameeyey kadib dagaalkii qaboobaa, waxay awood ahaan ka hooseysaa diyaaradda Apache, balse waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah diyaaradaha militari ee ugu wanaagsan adduunka, iyadoo la ogaaday inay duqeymo culus fulin karto, gaar ahaan duqeyntii ay diyaaradan Mi-24P
ku qaaday mucaaradka Suuriya, waana diyaarad aad looga jecel yahay adduunka. diyaaradda shanaad ee barnaamijkeena ku soo qaadanayno waxaa lagu magacaabaa Z-10M. diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha waa kuwa aan tayo badan lahayn marka lala barbardhigo diyaaradaha ay sameeyaan Ruushka iyo Mareykanka. diyaaradda Z-10M ma laha nashqado casri ah marka la dhinac dhigo kuwa Ruushka oo sanadihii ugu dambeeyay casriyeyn xooggan lagu sameeyay. waxyaabaha ay diyaaraddan dheertahay diyaaradaha kale ee dagaalka waxaa ka mid ah in si fudud lagu hagaajin karo mar haddii ay cilad la soo daristo. dhanka kalena marka ay howlgalayso waxaa ku baxo qarash yar, waana diyaarad la heli karo maadaama tirada la sameeyey ay aad u badan yihiin. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macallim Alto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.